السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wanasbada kram maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qofka sidee ku garan kartaa in ay maskaxdeeda dib u dhacayso oo masalan stresska iyo mashaakilka haddii ay ka bateen ee maskaxdaada u baahan tahay inaad dib iskugu noqotid fiirisid maxaa isbedelay sidee ku garan kartaa maskaxdaada inuu wax isbedel ku dhacayo si uga hortagtid intii ay kugu balaaranin soo 5 qodob aad jirto oo aad iyo aad loo fiiriyo markii ay qofka maskaxdeeda dib u dhacayso midda koobaad waxa waaye qofka hurdadeeda iyo cunitaankeeda isbedelo soo dadka markii oo wax ku soo socdo cudurada maskaxda ama markan ku dhahayo cudurada maskaxda kama wado cudur yani waxa waaye basically maskaxdaada shoobara ka dhex socdo way isku kaci rabtaa mashaakilkiya ka bateen wax ka tan badan maskaxda soo gaaray so qofka hurdadeeda isbedelayso waxa dhici karta hurdadeeda inay badato ama hurdada inay yaraato so taas mid koobaad waaye waxa kaloo dhici karta cunto cunoogeed qofka inuu bato ama cuntada ay ka go'dabo ee baahi qabanin labadaas aad important u tahay in aad u fiirisid cuntadaada haday isbedesho ama hurdadaada haday isbedesho maxaa ka qaldan ama maxaa iska ka bedelay kasoo ognahay bani aadanka wuxuu ku nool yahay runtii hurdo iyo cunto fiican inuu cuno so dadka hurdada ku yar tahay ama cunto fiican helin waxa arkaysaa inay xanaaq badan yihiin oo dabiicadooda isbedelayso oo walwalkooda badan yahay oo inuu enerjigooda yaraanayo so labadaas waa mid koobaad mid labaad waxa waaye qofka inuu dabiicadeeda ay bedelanto of course haddii hurdada iyo cuntadaada xun tahay dabiicadaadana way isbedelaysaa so dabiicada qofka way isbedelaysaa wax oo mood swings la dhaho waaye so waxa arkaysaa qofkii caadi iyadoo iska ahayd wax yar inay iska xanaaqdo waxa dhici karta inuu wax yar laga sameeyay inay wax weyn ka dhigta ee buuqdo ee dadka hataa la yaabaan ay dhahaan maxaa waaye waxa hala xanaaqsan tahay maba istaahilo waxa dhacay hadda ama dhibaatada meesha taala maba istaahilaan so taasna midda labaad waaye midda saddexaad waxa waaye qofka inay of course ka go'do dadkii ee la macaamilo jirtay ama inay ka go'do waxyaabihii ay suubin jirtay ama inay niyad u heenin camal inay waxa aado shaqada iskoolka wax just niyad jab camal inuu ku dhaco waxaan dhahnaa anaka emotionally numb inay noqoto oo wax ka farxiyaba ma jiro so qofki waxa waaye waxa umaba dareemayso midda afaraad waxa waaye again inay qofka waxa oo buufiska camal laga arko calaamadaha oo inay qofka depression camal inuu kusoo socdo dadka gooni inay u go'do inay faraxsaneen inay xanaaqsan tahay inay daalan tahay maanta dhan inay just يعني calaamadaha oo niyad jabka basically and mid ugu dambeyso waxa waaye qofka in ay maskaxdeeda attentionkeeda inuu yaraado oo wax yar markii shaqo camal loo dhiibo ama waxaan soo bildho inay dhameeweyso in maskaxdeeda waxa ahayn clear ay fikiri karin si sax u fikiri karin maanta dhan waxa dareemaysa inay go'aanka gaari karin iyada ee rabto qof kale inay u gaarto so qofkaas waxa dhahnaa maskaxdeeda qofkaneeto hoose u dhacaysa decline aan ku dhacayo so it's very important shataas qodob inaa iska fiirisid waxyaabahan haddaa isku aragtid ma aha inaa jiran tahay runtii waxa waaye inaa wax ka tan badan inuu kugu soo biiray so marka inaa ogaatid way fiican tahay maxaa iska kay bedelay waaye oo mushkilad i haasata ani aan fahmi lahay maxay tahay oo dhibaatooyinkaneeta ii keenta because runtii haddaa ogaatid waxa waaye waa laga hortagi karaa يعني ama adaa iscaawini kartid ama dadku caawinaa raadsan karta dhibaatada dadka badankood ay sameeyaan waxa waaye ma ka hortagaan cudurka markuu ku balaarto oo wax weyn noqdo ama cudurba noqdo markaaseetaa waxaa la raadinaa takhtar iyo intay ka bilaaba so waxa waaye insha allah wax fudud waa adaa is ilaalin kartid adaa isbaari kartid is fiirin kartid haddii oo wax iskaa bedele dadka ehelkaaga iyo guriga kula deganna way arki karaan wayna fahmi karaan haddii oo wax iska bedelo cunto cunoogaaga iyo hurdadaada iyo dabiicadaada hadday isbedeshay so haddii lagu dhahane qof yo maxaa kaa qaldan adiga ama qof yahay maxaa kaa qaldan caayaha u qaadanin oo dadka ha ku xanaaqin waana waaye inaad isfiirisidna way fiican tahay waa intaas iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiiso leh iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh